وحنا كانوا أنا ونقول رأي وحنا والبقاطع أما كانوا عن نحن ندرنا مقعنا أفكار استقبال الشمكش ضبط ساحة السياسة وعين أبو رأسي كرسوني كرسوني إيمانا جبلان العقمالي جبلان العقمالي قلبي وحق صباحي واحد في عمل نقول هو قالوا ما تجوا مسك في النهاية ضبط وإنه كرسوني أباه وإنه العلم وأرك هذا هو أرك حتى وإنه واحد يكون شيء وقبض مر وشيء كريس وشيء كريس هذه هذا هم حسيتين النبي وحرنا هذه الوذلية والملا الوذلية حلال الوذلية تاسع داود كده حرقنا تاسع من الله يعني يدا صار كأجنا يعني ما صوص عليه صوص عليه بلا صوص عليه مر والبقى يدا صار كأجنا دونا تلابة كتب جملة سان قال دونا ضدك مركز كلمة استعمال إني ضد الفدر عن السومال ضدك السوماليين ضد هاي مرجع كده السوق مقالة سيدا مجنون إمام الياي كرسوني سيدا إمام القطار مقالة هم حان فوق ما نسميه جوي المسمى هاي مقالة هذه ما سنتين وعلى إنه حوالك مر والبا سياسته وكتب جتاه ربيتان كي مصالح الضبط سياسته هلا فرفرة ذكر هالوقت هذه ما سنتين صار مدحوين السؤال قبائنا على هذا نقول لك سعادة عشان قبائنا waxay tahay madaxweyne xashi qofkii farmaajo ku horeeyay sadaraadeen inta fagaarayaasha kala soo istaago sida oo kale si adag dawladda uma dhalin jiray wali madaxweyne kala kaashanaysa maxaa jira dawladda la xidhiidhaysa shalay su'aashaas waa la weydiiyay annaga horta intaan joognay waana la dhalin jiray laakiin dhalishi ma diidi jirin hadda waxa dhalishi inay weyn tahay loo arkayo waxay tahay nidaamkii la dhalinaya shakhsi ma aha madaxweyne xasan sheekh madaxweyne shariif madaxweyne farmaajo ma aha nidaamka dawladnimada waxa laga hadlay in la ogaado aan la shakhsiyadeeyo annagu waxaan ka hadalnay waa nidaamka aniga waa la dhalin on the record waa taala mas'uuliyiin waaweyn oo dalka xilal ka soo qabtay wasiir soo noqdayaa joogay madaxweynaha maanta joogo wixii uu dawladda aniga aan madaxweynaha ka hay ka sheegi jirin on the record waa taala marka lidama dhalin jirin ma ana farqi waxa waaye dhaliisha maanaan diidi jirin dhaliisha la diidaya maanta meeshan ku kala duwanahay intaas waxaa rabaa inaan ku daro dawladda ma fursad siisaan dawladda fursad aan bisiina ma naga haysan dawladda inay toostaan rabnaa dawladda sida madaxweyne shariif hadda uu ka dhawaajiyo meel intaan fadhiisano gacmaha isaaran maan dhowrnaa intay wax walba naga halaabayaan waxa aan leenahay war yaanay wax naga halaabin waayo waxa naga halaabeen ma aha yaanay wax naga halaabin marka dawladda fursadaan siiyo waynaayo ra'yi fiican iyo waxa dhabtaa oo ayaga qaarkood been looga sheegoona aanay ogeyn yaan annagu publicly aan u sheego waynaa shakhsi ma aha waxa la haysto inay kala cadaataan nidaamka maanta ka jira ee dawladnimada ah wax badanaa ka khaldan inuu noo hagaago noo tooso weeyaan هذا كي المدحي ذاك الصومال محال إنتاج وقت استجري زين سيدا اسمع نسيك كتاسو عندي وحويري عنق باد الوكال عربي من كاسا إيدو بإريا عنق كلا الحرب يا جد انت قادة إيماني إنه المدة سو قاري له لكن الواقع هو هذا ما تنجد كل اللي يا ما تجيسن إننا رأي إننا طلب إحنا مركي فرصة للسين إننا كهلا مرة مركي فرصة للسين دولة وحاسين ترانسين كيف إذا أنا ولدي كار ترانسين مركي أنا ولدي كده ترانسين مركي وحارة صحافة الشيء وعند الركوب وصعدك هايسان كل وقتها ما عرفت بالوزارة لما عابي موقف كان يعني Soomaaliya imaqad article yiraahdo dheer Iran online iyo muxuu times online jawhar kulli waa ku jira
waxaan u dooda u taagnaay baarlamaankaa guux waxaa ka dhacmuqdaa dowladda in la diido xukuumadda in la diido xukuumadda inaan la diidin wixii aan ka qoray waxaan ka orwaanoodaa whatsapp groupaan intaan sameeyey oo xildhibaano badan kusoo darnay dhexdooda dood ku darnay maadaama aniga dalka aan ka maqnaa markaas dibadda aan jira dibadda jira dameer iyo nin fuul waa iga dayma iga deeqdo ayay ku taalla hala rabtaa armaanan keenin waxaan ka shaqay xukuumadoo 105 xildhibaan ay mooshin taqadum oo horumar ay ka keeneen lama keeni karaba baarlamaanka waxbaa ka qaldan ay leeyihiin yaa waxaas aniga aan aaminsanahay qayb inaan ka qaatay sababna aan weyn ka ahay in 200 jajar xildhibaan xukuumadda ay ansixiyaan xukuumadda waa la safnay maantaan diyaar unaan bannaanka ku taaganahay inaan la safno matalan caleemasaarkii madaxweynaha puntland waa wada tagnay madaxweynuhu waa tegey wasiirro badan dowlad goboleedyada dhan madaxweyne shariif waa joogay aniga waa joogay madaxweynaha waa la wada joogay guddoonka baarlamaanka waa joogay waa la wada hadlay maalintii hadalkaan nabadeedna waa fadhina qaybaan ka ahaynay odayaynaan ka galnay meesha annaga wuxuuna sida hadda u yaallaan mukaas 7 bilood ayuu la isku imaanin oon la wada hadlin oo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe aanay taleefon xataa aanay ku wada hadlin yaa madaxweynihii cusbaayo la doortay Saciid Dani oo wuxuu sababay in la wada fadhiisto waa la wada fadhiisto waa la wada hadlay wax badana la kala eed sheegtay markii dib waa la isku yimiday qof walba meesha uu ka qaray dalka hoggaan uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka fadhiyo isagaa mas-uulka aniga iyo madaxweyne shariif dadku yidhi coddeer ku yidhi asaa mas-uulka ka fursad aan siino madaxweyne Saciid Dani wuxuu yidhi gogashaan waa furan tahay haddii la sii joogaayo lagu wada tashanayo haddii dib loo ballamaayana mar walba waa furan tahay in la isku yimaado loo wada wax ka fiican oo la dheelaayo annaga waxaan dhahnay madaxweynaha fursad hala siiyo haddii inta hala sii joogo uu yidhaahna hala joogo oo muxuu ahay hala tashado oo hala heshiiyo oo hala israaco haddii maalin kalaan ballan qabanaa uu yidhaahdana muxuu ahay ballantaas dambe uu qabanaayo hala waxay diyaaraan u nahay shalana u ahayn maantana u ahayn laakiin dee nasiib darro laba waxyaabood isma raaci karaan aniga inaan maanta baxo oo madaxweynaha aan soo arko nafsadeedu waxa jira daawo uma aha waxa jira waxaa daawo ah ficil la sameeyaa daawo ah ficilkaasaan ku dhowraynaa annaguna haddii wax nagu tuumaayo inaan cod ku leenaha waa bixin waxa aan contribution keena abaad inaan sheegay ma waxaad u malaynaysaan haddii aan meel aan dowladda inta ka gaarsiino codkeena ay madaxda ku dhagaysanaysa haddii jirto inaan media imaanayn public imaanayn waanadu markay public timaado waana maaha tan hadda annaga aan sheegayna waana maaha waajibna saarnaay oo si kaloo gudana aan wayna dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno waana waxay ahayd markaan hoos u sheegi karo oon dhihi karo maya madaxweyne saana ka roob maya ra'iisul wasaare saana ka roob maya guddoomiye baarlamaan saana ka roob aan dhihi karo markii saas dhawaayo laakiin waxa waaye waxay taagantahay allah dadka Soomaaliyeed u sheegnaa waa qaldan yihiin wadaday ku sax lahaayeen ma taagin wadaday ku sax yihiin in soo istaajaan wadalka TV maxamed yaxya jiino waxa rabaa madaxweyne shariif inaan weydiiyo su'aashan oo ku saabsan maadaama aad kala hor sheegtay in garoonka diyaaradaha laga celiyay adigoo doonaya inaad Kismaayo tagto bal waxaad inoo sheegtaa ujeedada dad baa isweydiinaya macalin misaarkii ayuu ka qayb gali rabaa madaxweynaha mise arrimo kale ayaad u aadaysaa mise ka go'an tahay inaad Kismaayo tagayso maalin ayaad sirayseen madaxda waddanka tihiin shalay waxaad noo sheegteen inaad urur cusub oo coalition inaad samaysateen ma jirtaa hab cusub oo aad isla jeexdeen oo waddo ah oo doorashada soo socota aad uga qayb gelaysaan oo bulshada aad la wadaagi kartaa meel waa madaxweyne shariif bismillah wanaagsan anaga aragtida noo haytahay dalkan xilliga la soo dhaafay waxaa lagu soo waday heshiisiin dowlad kastoo imaanaysay qorshaha koobaad waxa waa heshiisiin welina waay ujeedada laga leeyahana waxay ahaaday dadka Soomaaliyeed kalsooni inay dhex lafto kalsoonidaasna lagu ku dhisan dadweynaha kalsoonidii waa la dhaawacay mas-uuliyaddeedana waxaan aaminsanahay inta ugu badan waxaa iskale annaga waxaan u taagannahay kalsoonidaas dhaawac